السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalihii dhammaan waa idin wada salaamay isku soo noqod wanaagsan maanta waa aragti waxaan sameysanay meeshaan waxaan ku sameysanay mandaasi sidoo kale inta waxaan ku sameysanay rooti maasha Allah tabaaraka Allah sida quruxda noogu soo baxay rootigeena waa aragtiin dhaxda waxaan ka gelinay kib flees ama hilibka jiirta oo digaaga sidoo kale burkan waa aragtiin mandaasi dhaxdiisa waa aragtiin maasha Allah tabaaraka Allah calool waxba ma lahan kan hal mar aan wada qasay hal mar aan wada sameystay maxay ahayd yani qasitaanka hal mar aan sameeyay arka waxa waaye hal mar aan qasanay burkaaga bur badan hadaa sameysatid wax badan ka sameysan kartaa hadaa jireysatid saadi jeceshahay waxaan ka wada yani in aad labo bur aad kala qastid ma ahan kana qasanay mid rooti ka sameyn kartaa kan had mandaasiga qayb aan ka sameeyay qayb waxa ka sameyn kartaa bur kale kuuskuusan ka dhigan kartaa waxaad rabtay qudaar dhaxda ka gelin kartaa marka adoos dhibin maaragtay hal mar qasane adana waxa ka sameysanay dhowr noocood maasha Allah tabaaraka Allah waa aragtiin sida quruxda uu ku soo baxay video qaybta dambe ka fiirsada insha Allah qaabkan u qasay qaabka u sameey insha Allah faa'iideysta idan leeyahay walaalay qaaliga maasha Allah tabaaraka Allah soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad idan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalay dhammaan waa idin wada salaamay meel walba joogtiin waxa idin leeyahay soo dhawaada insha Allah maanta waxaa inoo wadaahay maanta waxaan rabaa inaan sameysano saa aragti meeshaan bur iyo adduunyaan ku soo diyaarsaday alaabtaas waxaan rabaa inaan ka sameeyo qaybna rooti oo dhaxda hilibka gelina insha Allah qaarna aan ka sameeyay mandaasi ama burkeen caadiga ahaa intaas rabaa inaan ka sameeyo insha Allah hal mar aan wada qasaa laakiin laba qayb aan rabaa inaan u sameeyo saa u sameystay la arka insha Allah aan ka faa'iideysta idan leeyahay waxaan ku haystaa 3 koob bur burkeen caadiga ahaa xabad ukun shan wax yar cusba igu jira maasha Allah inta saliid yar aan ku haysanaa sonkor laba qaado yar yar sidoo kale meeshaan khamiir leebatadiina ugu jirta koob caano iyo koob biyo biyahaas qandac iyo koobkaas xaanadan ka sameysanayna insha Allah intaas rabaa inaan ka sameeyo insha Allah marka hore koobka caanada isticmaala wixii ka dambeeyna biyaha qandaca maxay ahayd inta dhiman aan ku sameysanayna insha Allah hada inoo bilaabo ila socda insha Allah waxaan saa u sameeyay ila arka maasha Allah waxaan isku soo daray ukuntii wax yar oo saliidi wax yar aan ka isticmaalay laba qaado camal aan ka isticmaalay intaan koraan ka rabaa inaan kaga daro insha Allah iyo sokortii iyo leebatidii aan wax yar oo biyo aan ku soo qasay intaas hadda meeshaan ku soo wada shubay insha Allah hadana waa inoo qasaa markaa qasa kadib ila socda insha Allah saan ugu soo baxay arki doontiin maasha Allah walaalay waan soo qasay koobkii caanaha koobkii biyaha wax yar aan ka isticmaalsan aragtiin baad waxaan ku qasay marka koob iyo bar halka caani wax yar oo biyo insha Allah wax yar oo saliid hada korka soo mariyay insha Allah waan sugeynaa inta nagu soo khamiiraayo ilaahay raali ka noqdo kadib waxaan sameysanaynaa qaybta aan foornada gelin lahaa rooti ka dhigi lahaa qaybta kalena u diyaarsan hadda hilibkii wixii aan ku sameyn lahaa u sii diyaarinaa insha Allah qaybta kalena waxa ahayd saliidayna ku sameysanayna waa maxay ahayd mandaasiga caadiga ahaa waa ka saliidan ku dubanayna insha Allah qaybna foornada waan sugeynaa ilaa iyo nagu soo khamiira insha Allah la socda idan leeyahay maasha Allah walaalay qaaliga waxa sameysanaynaa hadana rootigii hilibkii dhaxda ka gelin lahayn inta waxa ku haysanaa kib flees hilibka digaaga oo jiirta ahaa hilibkaas rabaa inaan dhaxda geliyo maanta qudaar badan kuma daraay had xabada basasha wax yar oo live oo dabka soo saartay taawada way ii kulaatay had waxaan ku daraa xabad basal oo yar xabad yar ay ahayd intaan rabaa maanta inaan rootigii dhaxda ka geliyo insha Allah kifleeska in wax kale ma u baahna asaab iska jilicsan maanta hadana kifiyaan ku rido insha Allah intaan wax yar hadda isku dhaqaajinaynaa kadib waxaan ku darsanaynaa maasha Allah walaalahay waa aragtiin inta waxaan ugu soo direeyay wax yar oo digaag wax yar oo huruudi oo inta ku darsanaynay filfil madow hawaaji kaariga caadiga ahaa iyo toonta shiidan intaana ugu dhigaynaa maxay ahayd aan ku darsanaynaa intaana ku dhaqaajinaa insha Allah
bariiskii faleeska uma baahan in wax badan la kariyo asaab iska jilicsan marka waa huurina intaan la ku huurinayo ilaa 10 daqiiqo camal insha Allah kadib rootigeena inoo diyaarina maanta intaan kaliya rabo inaan dhexda ka geliyo basal kale kuma daraayo qudaar kale kuma daraayo intaan rabaa bas inaan ku sameeyo insha Allah ayna soo huurina hadda bacda 10 daqiiqo insha Allah arki doontiin si nagu soo baxdo ما شاء الله 30 minutes diyaar hadda waa aragtiin ما شاء الله rootigan intaan dhex gelinayna maanta hadana waa inoo soo diyaarinaa burkii rootiga aan ku qasano oo noo diyaarsana iyo qaabka u gelin lahayn insha Allah ما شاء الله walaalihii waa koona labada xabo horeysa sina kuuskii hore aan soo qaaday ما شاء الله waa inoo fidinaa hadana dabka u fidinayo laakiin insha Allah wax yar oo gura mariyay meesha ku fidinaay anaga dhigdhigta ma rabo marka hadda saa u fidiyay waxaan sameeynaa hilibkii aan dhexda ka gelina insha Allah aragtiin saana sameeynaa marka hilibka saan dhexda ka gelin waan ku soo laabaa insha Allah waxa yaraada dhinacyada saan ka dhaha kadib mindida saan ku jiraa waxaan u sameyn rabaa sheen yar oo qatar noo noqoto marka saan u wada jiro kadib dhinacyada saan ka dhaha insha Allah saan ugu gedina aragtiin insha Allah kana kila wada sameeyna insha Allah sidii loo sameeyna hadana burkii waxay soo marsaday dhulka saga dhigdhigin insha Allah marka hore kuuskii riis ka dhigay ma u baahneen in zaid loo fidiyo wax yar waa marka hore ma waaweynin marka wax yar la sameeyaa in zaid loo fidiyo ma baahan baqasaab khafiif ah ina muhiimadina khafiif ku noqdo la waaye inta hore sana wax ka siidaha ayadana waxay rasaan ugu laabaan insha Allah ما شاء الله سانا كسو دمينا انت نو دمنا ان شاء الله كل لبدي هره حبه waa aragtiin waa kasa inta noo dhimana saana ku soo dhameynayna markaan soo dhameeyay kadib isla arkayna insha Allah ma sha Allah waanu soo dhameeyay wax yar sugayna 10 daqiiqo insha Allah qaybtii kala hadana sii diyaarsanayna mandaasigii ma sha Allah hadana qaybtii mandaasigii noo diyaarina insha Allah quraan soo masay la qaybaan ka dhigay oo jeer inaan kala fadiyo ما شاء الله وسوف ذي هذا نوع نوجر إن شاء الله قف بقاك والرؤوس سميسانا جريتان كدوقاقة لكن سيدي سنبوس كالرواية نوجرتا كان هذا عموية وين هذي تحضن بسان كدها سيدو كل خيبتي كلا سيدي هاو سميسانينا إن شاء الله وعرفتين وراخد أنا صارتي فرناد اللي قوليناي سائد خفيف ومدين وليسنا معا ما شاء الله قيبتك الله ينوصو ديارنا إن شاء الله ما شاء الله ولا ليه وارتين قيبت من داسي نسانا أصو جرجري كي كلنا waa diyaar inta taawadi saliidan ku saarto burku ku duwan leheen howshu waa isla wada inta waxaan noogu jiro xabad ukun aan soo garaacay ku soo khaskhasay badaas waxaan rabaa inaan hadda kor ka mariyo rootigii kunta wax yar oo midab qurux badan oo waxa uu yeelay aad u fiican oo gaduudan wax kale laga ma rabo
haddaad rabtid ukunta aad necab tahay waxaa marsan kartaa caanaha marsan kartaa, laakiin ma kala jecli haddaa caano mariyo haddaa ukunta mariya labadaba, saas darteeda ukuntaas ka marsana insha allah. dadka qaar aan ukunta isticmaali karin ama urteeda necab waxaa samayn kartaa caano yar maxay ahayd korka marine, aragtiin saana uma marina, kadib foornada inoo gelina mandhaasiga noo sii diyaarina insha allah. hadda waan soo wada mariya insha allah, foornida gelina, saliidda way inoo kulaatay insha allah, korkii hadda ku ridanaynaa. markaas saliidda wax yar saan ku dhaadid uu soo kaca ma aragtid insha allah. igadi taagan yahay car igadi. mirkan oo soo diyaarsaday diishan hooska u dhigaysaa saliidda oo qaada maasha allah. walaalihii saana kusoo dhameeyna insha allah. waa aragtiin waraaqda markasta way fiican tahay, meel aad saaratid ay kaaga dhigay, laakiin waraaqda waxba kaagama dhigayso, si fiican ay kaaga soo faqay. markasta foornada u isticmaali kartaa, waxyaabaha sameynaysa u isticmaali kartaa. maasha allah tabaaraka allah. waa taqaaniina u malaynaa kolley waa keen babiir maa la dhahaa, wax saas la dhahaa magaceeda insha allah. walaalihii saana kusoo dhameeyna, markaan soo dhameey kadib ay idin tusina insha allah. maasha allah walaalihii ugu dambeyntii waa noo soo dhameeyey maasha allah. waa aragtiin rootigeena foornada waan ka soo bixiyay, sida qurux badan oo kusoo baxay. waa aragtiin mandhaasiga sidoo kale maasha allah tabaaraka allah, sida qurux badan kusoo baxay. waa aragtiin dhexdiisa alwali waxba ma lahan, taanoo maxay aheedo yahay bahalkii dhexdiisa. waa aragtiin waxaa rabtid aa ku cuni kartaa, haddaa rabtid maxay aheyd sheeg sokor yar kor kaga daadsan kartaa, sokorta yacni shiidan oo diyaarsan. waa kaasi walaalihii waxaan u malaynaa inaad fahanteen insha allah, ka faa'iidaysta idin leeyahay. haddaa ka heshay fadlan like noo saar insha allah. haddaa nagu cusubta waxaan ku leenahay soo dhawow, subscribe-ka inoo saar, beelka taabso saa mar walba nala socotid. inta hadda horey nala joogtin waxaadan leenahay mahadsantihiin. jasaakum allahu khayr. walaashiina faadma oo idin leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.